السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada muuqaalkeena aan kusoo qaadanayno nooca saddexaad ee noocyada shallow foundation-ka oo loo yaqaano combined footing. Okay, waa maxay marka combined footing? Combined footing waa nooc ka mid ah footinada kaas oo la isticmaalo marka dhisansaha laba column uu yahay small. Okay, yacni waxaan isticmaalaynaa combined footing ama adeegsanaynaa markii labada column dhisansaha u dhexeeya uu yahay mid yar. Okay, so marka sidaa daraadeedna footinadooda columnadaas footinadooda ayaa waxay sameynayaan overlap oo ah inay is dhex galaan. Okay, overlap with each other. Okay, intaas kaliya miya may soil bearing capacity-ga oo ah iska caabinta awoodda ciidda isaga caabinayso culayska lasoo saarayo oo foundation-ka iyo structure-ka xaggiisa uga imaanayo awoodda isaga caabinaysana maxay tahay awooddaasi waa mid low ah. Okay, awooddeeda yar. Marka combined footing-ka marka wuxuu noqon karaa rectangular shape-ka ama qaabkiisa marka la fiiriyo rectangle ayuu noqon karaa waa haddii labada column ba ay qaadayaan culays isla eg. Okay, ama wuxuu noqon karaa trapezoidal. Okay, ayuu noqon karaa haddii ay jirto space limitation. Okay, yacni waxaan column-ka ama footing-ka marka la sameynayo space uu kaaga baahan yahay. Space-ka haddii ay xadidan tahay tusaale ahaan oo width-ka iyo length-ka marka la fiiriyo labada dhinac midkood hadduu xadidan yahay oo aadi karin iyadana waxaa ku qasbanta trapezoidal oo noqonaa. Okay, sidoo kalena maxay qaadayaan unequal loads culays aan sinnayn. Okay, inta badanna marka la dhisaayo materialka ay ka samaysan yihiin waa reinforced concrete, waa shub bir wato waa. Okay, intaasna isla fahnay ayaan rajeynayaa. Marka labada nooc ee ugu caansan ee combined footing marka laga hadlayo shape-ka ay qaataan waa hadda kasoo hadalnay waxay noqonayaan labada marka nooca koowaad maxay noqonayaan waa rectangular. Okay, hadda intuu noogu sheegay waa kan rectangular in shape uu dhahay. Rectangular combined footing-ka marka wuxuu qayb ka yahay combined footing-ka. Okay, wuxuuna support gareeyaa ama uu celiyaa labo ama wax ka badan oo column ah ayuu celiyaa uu support gareeyaa. Okay, marka goorma la isticmaala marka rectangular combined footing waxaa la isticmaalaa markii aad rabto rectangular shape. Okay, sidoo kalena culayska labadada column ka imaanayana ay isla eg yihiin. Okay, haddii intaas la helo waxaa ku qasban tahay inaad rectangular isticmaasho ama way ku furan tahay inaad isticmaasho. Okay, nooca labaad waxaa la yidhahdaa trapezoidal combined footing. Okay, asigana waa nooc ka mid ah combined footing-ka. Okay, waxaana la isticmaalaa markii meeshaas aysan ka jirin laba culays oo isla eg. Okay, column-yada culeysyada ay wada qaadayana kala duwan macnaha. Marka maadaama aysan jirin culays isla eg oo culeysyada maanta haysan ay yihiin unequal waxaan ku qasbanaanaynaa marka inaan isticmaalno trapezoidal combined footing. Okay, so marka waxaana lagu dhahay they do not have to fix shapes and sizes. markaas oo kale culeysyada kala bedelan yihiin inaad tiraa shape-ka new shape isla eg oo ma aragtay nidaamsan aan ka dhigaa waa habeena macquul ma noqonayso sababtoo ah meesha waxaa jiro culays unequal ah. Okay, marka wuxuu ku yiri when they come unequal load from the structure so they cannot make unequal rectangular footing. waa sax maadaama culays unequal ah uu ku yimid meeshaan oo structure-ka xaggiisa uu ka yimid marna ma dhici karto inay rectangular fiican ay helaan. yacni rectangular u sameynaa ma dhacaysaba sababtoo ah haddaad rectangular u sameynaa macnaheedu waxay ka dhigan tahay isku culays ay qaadayaan. saasna ma aha hadda isku culays hadday yihiin isku culays haddaysan qaadaynin isku area ma noqonayaan. Okay, sababtoo ah culayska iyo area isku xiran yihiin kullama culays badan aad soo saarto meesha area weyn ay kaaga rabtaa. Okay, so marka kan haddii culays yar yahay footing-kiisa u habeene kan haddii culays weyn yahay footing isaga u qalma ayaa u sameynaysaa. marka sawirada aan isla aragno meesha marka waxaa ku haysanaa laba column-na waa kan ahaa column kalena waa kan ahaa. Okay, markan waa markay rectangular-ka yihiin kan waa markii oo section-ka u yahay waa. Okay, sidaan u ekaana qaabka section-ka markii balaanka laga soo fiirina waa kaas ahaa. Okay, footing-ka waa kan ahaa column-kina waa kan ahaa. Okay, marka la design gareynayo marka waxaa la rabaa in lagu xisaabtamo ama footing-kan la rabo in la go'aamiyo cabirkiisa waxaa la rabaa culayska labadan column ka imaanayo culayska guud isku darka labada column culaysyadooda waxaa la rabaa in loo design gareeyo inuu dhacayo centerka footing-ka. Okay, footing-kan centerkiisa inuu dhacayo ayaa loo design gareynaa. Okay, case-kan oo kalena waa case-kii loadska ay isku mid ahaayeen loadska labada column soo fuulaya ay isku mid ahaayeen sidaa u jeedidba. Okay, case-ka kale aan aragna marka column-kii waa kan ahaa column-kii labaadna waa kan ahaa. Okay, labadii column marka meesha noo yaaliin marka culayska soo saarmaya labada column ayaa kala duwan maadaama culeysyada ay kala duwan yihiin marka isku area ma noqonayaan oo hadda inta width-ka inta aan ku haysano iyo width-ka meeshaan aan ku haysano waa kala duwan yihiin. Okay, kana width weyn soo marka saa daraadeed waa la isku xiraa waxaa waaye kan ina area yar ku filan tahay laga yaabaa. Okay, area yar ina ku filan tahay laga yaabaa areas ina ku farganas balse kan area-daas area ka weyn ayuu u baahan yahay. Okay, sida u jeedidba so marka that's why trapezoidal u noqdo qaabkii. Okay, so marka waa markii culays unequal ah meesha uu yimaado waa. Okay, nooc saddexaad marmar lagu jaraa oo la yiraahdo T-ga marka wuxuu noqonaa
sidaan hadda camal leh waa kan oo kale waa okay sidaan oo kale ayuu noqonayaa yani hal column culays weyn qaadayo okay okay waa hadda waa qaabkii trapezoidal oo kale waa yani intana column kale ku jiro okay oo areadiis intaas ay tahay intana column kale ayaa ku jiro okay so marka labadaba waa isku scenario waay marka culaysyada kala duwan kan areadiis iyo kan areadiis kala duwan kadibna waa la isku combine garay waa la isku xiray okay so marka hore aan uga soconno asbaabaha keenaya marka ama xaaladaha aan ku qasbanahay marka inaan isticmaalo combined footing maxay tahay marka kuwa ugu muhiimsan ayaan hadda isla arkaynaa sababta ugu muhiimsan waa tanaha okay markii footinada laba column okay laba column footinadooda ayaa close ah waa isku dhow yihiin okay waa isku dhow yihiin hadday isku dhow yihiinna maxaa dhacayso tusaale ahaan hadda column meeshan ku yaallo footina u samayso okay footin markaa u samaysay column kale kugu dhow okay oo agtaadoo kale yaallo aan waxba kaa fogeen isagana sidoo kale wuxuu rabaa inaad u samayso maxaa la dhahay inaad u samayso footin oo karaa soo marka waa issoo dhex gelayaan okay oo space fiican uma dhexeeya soo marka sidaas oo kale hadday dhacdo oo aad ay isugu dhow yihiin oo kale waxaa ku qasbantahay inaad combine garayso okay oo aad ka dhigto hal footin aad u samayso waa ku qasbantahay markaas xaaladaas oo kale waxaa ku qasban tahay inaad isticmaasho combined footing okay xaaladda labaad oo marka keenayda inaad isticmaalo combined footing maxay tahay waa markii load bearing capacity of soil is low markii awood qaadidda ciiddeena ay tahay mid low ah macnaha aad u yartaa macnaha daciif waaye awoodda carrada yar macnaha oo culayska isaga qaadi lahayd soo marka maxaa loo baahnaa marka waxaa jirto baahi ah in area badan loo baahdo under the individual footing halkii footina meeshan ku yaala okay tusaale ahaan isolated isticmaalayna okay isolated markaan ku dayno hal column meeshan yaalo carradii awoodeedii yar marka maxaa ku qasbanahay areadan inaa weyneeyo areadan ima anfacayso areada meeshan ku jirto way yar tahay soo marka halkii footin area ka badan ayaa u baahanahay areada uu leeyahay soo sidaa daraadeed marka maxaa ku qasbantaha optionkan inaad iska kansasho xaaladda saddexaad marka waxay tahay haddii columnkaada uu dhaco columnkaada wuxuu dhacaa property line okay property line waxaa la adiga hanti waa waxa ay haysato dhul waa okay hantida marka xaday leedahay xad okay gurigaada adiga xad uu leeyahay 0.05 xataa kuma dirsan kartid oo aadan lahayn okay soo marka xad markaan leedahay intaana adiga dhisan kartaa oo columnadaada waxaa ku habaysan kartaa okay soo marka waxaa lagu dhahaa haddii columnkaada uu dhaco meel u dhow property line okay مثلا halkan camal u dhacay okay columnkaada ayaa meeshaas dhacay footina u sameeyay rabtaa marka wuxuu kii marka macquulna ma aha inaad yacni footinkiisa inuu property line-ka uu dhex galo macquul ma noqonayso haddaad tiraahdo yacni footin waxaa isoo baxay 2 mitir square ah saanaan sameeyaha marka 2 mitir intaa aadaa saan 2 mitir square saana dhaha ma lagaa yeelaa sababtoo inta adiga ma lihid adiga property line-kaaga halkaan uu ku egyahay property line-kaaga waa kan okay ma dhaafi kartid soo marka xaaladaas oo kale maxaa ku qasban tahay inaa inta ku ekaataa ku qasban tahay okay iska ilaali marka xaaladaas oo kale inaa iska jirta ayaa la rabaa idan way imaan kartaa waa qodobka hadda saddexaad waay columnkaadiyaa wuxuu dhacay property line-ka okay soo marka markaas oo kale waxaa ku qasban tahay inaad halkaan ku ekaato okay soo marka maxaa ku qasbanaanay marka inaad mid kale combine ah kala dhigto okay mid kale oo gudaha ku jiro ayaa combine kala dhigaya soo marka waxaa sameynaya hadhow sidaas ayaa ku combine gareynaya oo combined footing ayuu ku noqonaa okay waxaa jirta marka mid iska ilaali marka columnyada marka la combine gareeyo column kasta la iskama combine gareeyo okay laba column marka haddaa rabto inaad isku combine gareyso midkood waxaa la rabaa inuu noqdo column interior ah oo areadiisa iyo wixiisa dhan nadiif ay yihiin kan oo kale hadda maxaa kugu dhacay property line ku soo dhawaaday ma dhihi kartid marka column kale oo isagana meelahan ku yaalo oo property line-ka isagana dhacayo ku combine gareynaya lagama yeelaa suurtagal ma ah ma is caabin karaa markaas oo columnkaas ma fiicnanaya okay waxaa laazim ah column kale interior ah inaad ku combine gareyso markaas way is ceshanayaan oo awoodii markaas labada column way fiicnaanaysaa okay soo markiina isla fahnay ayaa rajeynayna saaxiibayaal waana mahadsantihiin dhammaantiin